walaal insha allah waqtiga waad u yardartii dhowr su-aalood ayaan insha allah sheekh uga dhigi doonaa. labadan saa-il su-aalahooda aad bay isugu dhow yihiin. waxaa su-aalahan soo qoray rag dhalinyaro ah, waxay leeyihiin sheikhuna alfaadil, awalan alla dartii ayaan kuu jecelnahay. ilaah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaya in loogu kulmiyo taxta carshigii, waxaanu leenahay aamiin. sheekh, su-aashaydu waxay tahay, haddaan nahay shabaabka dhib ayaa naga haysta xagga guurka. mar gabdhaha ayaa shuruud iyo takliif aanan ka bixi karin lagu xiro, sida aroos qaali ah iyo inaanu dhigno. marna waalidiinta ayaa loo diida, marka maxaa lagu talin laheed? su-aasha labaad wuxuu su-aashaasi wuxuu leeyahay ninkaan dhalinyarada waxaan in badan doondoonaa gabar wanaagsan oo ducaysan ama akhlaaq diin lah, waana la ahay sheekh, marka waxaad ugula talisa sidaan ku heli lahayn gabdho wanaagsan. بسم الله الرحمن الرحيم. horta marka koobaad axabakum allahu aladii axbabtani min ajlihi. marka labaad waxa weeye guurka runtii dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inay guurka ku degdegaan oo guurkan la daahinayo in la iska daayo. waxaa yihi nabigeenu sal lla alay waslam wuxuu yihi yaa macshara ashabaab, dhalinyaradii buu nebigu yuri sal lla alay wasalam, guursada. ninkii ni heli kara kharashka guurka ha guursada buu nebi yuri sal lla alay waslam. waaga nebi maxamed uu sidaa lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, fitanku uma badnayn sidan hadda ay u badan yihiin. kulamaa ay fitnadu badatana waxaa loo baahan yahay ruuxu gaashaankii uu kaga gaashaaman lahaa fitnada inuu samaysto iyo guriguu ka geli lahaa. rag iyo dumarba guri sidaad rabtay aan ahayn oo shuruudihii aada wadatay wax kaa dhiman yihiin baa dhaamo guri la-aan. limaada? ilaahay kama dhigo subxaana wa tacaala, laakiin waxaa dhici karta fitankan socda inaad ku dhacdo faaxisho, inaad ku dhacdaa dhici karta, oo adduunkaagi iyo aakhiradaadiba aad khatar kartaa dhici karaysa. sidaas daraaddeed in guurka la dedejiyo, horay loo guursado, waa sida ay shareecadeennu ku talinaysa. horay u guursada. ciddii aan guur heli karinin nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam ha soomo, maxaa yeele soonka ayaa shahwada jebinaya, isagaa idin dhufaanaya bu nebi sal lla alay slam. macnaa waxa weeyaan maadaama uu shahwadan faraha badan ay ka imaanayso cunitaanka iyo cabitaanka faraha badan iyo jidhka nafaqada qaadanaya, jidhku hadday nafaqadii ku yaraato waxaa yaraanaysa shahwadii baa yaa daciifaysa. saas daraaddeed nebigu wuxu uhi sal lla alay slam sooma. marka hadda yacni waxaan u malaynayaa guurku ma adka, saa uma adka. dumarka haddii ay jirto oo shuruudo iyo qaab gooniya iyo guri iyo fakfak iyo waxyaalahana, runtii waxa weeyaan waa waxyaalaha guurka caqabaadka ku noqda. guurku hadduu adkaadana zinadaa fududaata. mar walbo guurka la fududeeyo zinadaa yaraata. mar kasta oo guurku adkaadana zinadaa fududaata. limaada? lianna labadan jinsi adiga ma kala celin kartid. labadan jinsi haddii aan la kala celin karaynin, dariiqii xalaashaa haddii uu adkaado dariiqi xaaraama isku raadsanaya. saas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah rag iyo dumarba in la fahmo waaqica la joogo iyo meesha la joogo iyo wadciga la joogo iyo xaaladda lagu jiro. saas daraaddeed guurka in la fududeeyo, guurka in la fududeeyo oo ama ha noqoto meherka, oo nebigu sal lla alay waslam wuxuu yihi dumar waxaa ugu khayr badan kuwa ugu meher fudud. guur waxaa ugu khayr badan guurka ugu qarsheer. ma aha inaga saan u haysano, dad badan u haystaan oo faanfaan iyo ha lagaa sheego iyo ha la sheego iyo heble iyo hebel waxaasay dhigteen iyo kana la sameeyey iyo yani xataa dadka qaarkood yani caqli xumadooda waxay gelayaan daymo aan caadi ahayn, daymo aan caadi ahayn oo wax kalifay uusan jirin, wax duruufoo kalifaysana ayna jirin.
waxay ku bixinayn haddana macno la-aan australia maalin aan tegey baa waxaa la ii sheegahayay intaan joogay baa aroos dhacay waa magaalada melbourne waxaa laigu yidhi 2 wiig ka hor baa mid soomaaliya aroostay wax badan ma haysanine lacago fara badan buu dayn ku qaatay lacagihii wuxuu ku kharash gareeyey arooskii xataa waxaa laigu yidhi ilaa 40 mise 30 kun oo dollar baa wuxuu ka bixiyey diyaarad helicoptero inta lagu qaado magaalada korkeeda lagu soo wareejinayo ninkan nin adeer u ahaa oo ii waramayey baa wuxuu ii sheegay arooskoodu markuu dhammaatay wiig arooskii intaasoo kharasha lagu galay wiig markay wada joogeen way kala tageen buuri asagii waxoogaagii markay ka kala intuu burburiyey banaanka kusoo dhacay baa hooyadii aabihii baa la soo hadlay markaasa waxay yidhahdeen hooyo meeshaasaan joognaa waxoogaa baan u baahnaa wax noo soo tuur kii adeerkii habuu u yimid oo wuxuu yidhi adeer hadde waxa wey hooyihii aabba halkaa joogay bal $1 idaymi $1 idaymi waa ninkii shalayto taqriiban 60 kun oo dollar baa bi'iyey waay maantana hooyadii iyo aabihiiba wuxuu u leeyahay $1 buu u leeyahay caqli xumo ka weyn adiga bal weligaa miyaad aragtay waa nooc safaha ah way safiihnimo waay waxa la doonayaa marka wax weyn ma ah muhiimaddu waxa weeyaan labada ruux inay is arkaan isku dhowrsadaan caruur kale helaan laakiin gogosha la dhigaya inay saas tahay macno weyn kuma fadhido meherka la bixinayo inuu saas yahay macno weyn kuma fadhido magacan iyo hala sheego macno weyn kuma fadhido muhiimadda laga aadaa muhiimaddu maxay tahay muhiimaddu waxa weeyaan gabadhuna inay ku dhowrsato wiilkuna gabadha ku dhowrsado intaa in yani waxa weeye xoogga la saara loo baahay wixii kaleeto oo dhanna la fududeeyo heer waxay gaadhi khaliijkoo kale hadda markaad tagto khaliijka sacuudigan joogi jirnay sacuudiga gabdhihi iyo wiilashu waa isu baahan yihiin waa dad koray guur bay u baahan yihiin haddana maca daalika gabadhii halkaasi ku guumaysoobaysaa wiilkiina banaankaasuu taagtaagan yahay oo waa wareegeysanaya 4 sac kolba telefoon buu diraya maxaa kale hortaagan dadka waxaa kale hortaagan caado adkaatay oo meel laga maro lala yahay marka ugu horeysaba meherkeeda waxaa laga bilaabayaa 40 kun 50 kun 100 kun oo riyaal soo dhig baa lagu leeyahay ma heli karo gabdhihii qaar baa say guryaha u joogaan bay ku gumaysabayaan ku weynaanayaan wiilashii meeshana iyagana rafaadsan yihiin soomaalidu hadda meeshay kusii socoto halkaa wey haddaan la daba qabanin oon dib loo soo noqonin oon lagu soo noqonin maalinkii yani waxa weye 2 neef oo lo-daa iyo misxafka qur-aankaa iyo misxaf qur-aana raggii ku mehersaday baa jooga gabdhaha waxoogaagii haddaan lagu soo noqonin barakada lahaa wala meel xun baa lagu sii socdaa dhalinyarada marka rag iyo dumarba guurka ha la fududeeyo kharashaadkan la dul saaraya waxana ha laga fududeeyo zinada iyo xumaanta iyo faaxishadu si ay u adkaato oo dhalinyaradii ay u helaan baahidoodii inay gutaan masalada kaleete ah gabadh ii qalantaba waan la ahay warkaasi waa war u baahan inaad dib ugu noqoto adiga laftaada haddaad ismiisaanto oo aada miisaanka isa saarto malaha waxaan u malaynayaa naftaadaadan aqoonine gabadh kuu qalantay mid kaa fiicanba waad heli lahayd haddii aada diin sheegayso kuwa gabdho kaa diin badan baa jira haddaad qurux tahay gabdho kaa qurux badan baa jira wax walboo tahayba gabdho kaaga sitaa jira marmarka qaarkoodna shuruudahan faraha badan ee adag ee dhalinyaradu iska dhaadhicinayaan ee dejisanayaan shuruudaha laftoodaaba marmarka qaarkood caqabo ku noqdo oo qaar baa waxay sawiranayaan haweenkii ahli jannada sawir ah bay meesha soo dhiganayaan waraadha kuwaasi meeshan lagama helo kuwani meeshan ma joogaan sawirka mubaalaqahee lagu xeel dheeraanayo ka bax midku deeqda iyo boqolaal kugu filan iyo boqolaal kaa fiican ba insha allahu tacala waad helaysa intaa nebigu kuu sheegay qabso salawaatu rabbi wasalaamu calayh fadfar bidaati diini taribad yadak haweentu diinahana ku lahaato wixii kale ilaahay kugu darana waa waxaaga wax lagugu darway wabillahi towfiiq جزاك الله خيرا سائلكان isla su-aasha hadda ayuu waa faahfaahin wuxuu leeyahay maadaama qofka diin iyo akhlaaq lagu doorto maxaa loola jeedaa marka hore diinta ma inay gabadha qur-aanka xifdisanta ama welka qur-aanka xaafid u yahaa ma in diinta u yaqaana maxaa loola jeedaa diinta haddaan israacsado wuxuu leeyahay saailkaana sheekh waxaan rabaa inaan guursado gabadhan waxaa waalidkeeda igu yidhi gabadhan waxay dhalatay bil 3 ah marka waxaasi wax khuraafada mise waxbaa ka jira waxaa ligu diiday gabadha inaan guursado
inay bil saddex dhalatay. isla su-aal ku saabsan su-aalahaas oo waalidiinta ku saabsan wuxuu leeyahay saa-ilkan gabadh aan ku doortay diin iyo akhlaaq ayaan heshiinay, waan isjecelnahay, laakiin waalidkii ayaa isu kala diidan iyagoo cilad uga dhigaya in ay gabadha gobol kale ka timid ama wiilka gobol kale ka yimid. jazaaka allahu khayr. bismi illahi raxmaan raxiim. horta gabadha diinta le waxaa laga wadaa bimacnaha inuu ruux diinta islaamka iltizaamaya oo waajibaadkiisana gudanaya, xaaraam caddaanana aan u badheerhaynin. intaa haddii laga helo waa ruux diin le wey. ruuxaas inay qur-aan xifdisan tahay iyo inay kutubta akhrinayso iyo inay sheekho tahay iyo inay brofesoro tahay iyo inay dictooro tahay, intaa haddii ay sii siyaadsato waa khayr, lagu diidi maayo. laakiin markuu lagu leeyahay daatu diin waxa weeye haweeneydu waa haweeney in ay tahay diinteeda ogol, iltizaamaysa, ilaahay amarkiisa qaadanaysa, amarka rasuulka qaadanaysa sal lla alay wasalam, waajibaadkeeda diintana gudanaysa, xaaraam muuqatana markaa aan ku dhacaynin. way ku dhaceen shaksiyaadku dee ruuxan qaldamin ma jiro, laakiin aan muujisanayn, ku madax adeegeen. ruuxaasaa la yihahda ruux diin leh, ama rag ha ahado ama dumar ha ahado. intaas waa ku filanta. dabcan markaan leenahay waajibaadkeeda waa inay gudanayso, macnaa waxaa soo gelaya inay diintii waxay ku cibaadaysato ka taqaano. inay ku cibaadaysato waa inuu ruuxa kasta yaqaano. inta ruux kastoo muslima rag iyo dumarba waajibka ku ah oo ah inaad cibaadadaada saxan karto, salaadii saxan karto, weysadii saxan karto, qabayskii saxan karto, yacni waxa weeyaan soonkii saxan karto. cibaadaadka waajibka ah cilmi aad ku saxan kartana waa inaad leedahay, waajibaadkii ku saarnaana gudanaysa inta tabartaada, wixii xaaraamana inta tabartaada aad ka fogaanayso. ruuxa diinta le waa ruuxaas. qodob horta waa qodobkaas waxa wey ruuxa diinta le hala qeex marka la yihahdo kaa isagaa wey. shardi maaha inuu qur-aanka xifdisan yahay, bal saxaabada iyo salafka intii qur-aanka waxaan dhihi lahaa saxaabada inta qur-aanka xifdisan oo qur-aanka o dhan wada xifdiday baa yaraaba. qur-aanka o dhan in la wada xifdiyo way fiican tahay, laakiin shardi maaha. arrinta labaad oo waxay ahayd arrinta ku saabsan gabadhan bil saddexaad bay dhalatay oo laguma siina bil saddex ay dhalatay. macnaha bil saddex ay dhalatay way barakeysan tahay miya mise way halaysan tahay? way halaysan tahay miya? macnaha burji way burji xun tahay waxbay ka wadaan baan u malaynaya. waa khuraafaan waxba ka jirin. khuraafaan waxba ka jirin. arbaca bil u dambeysay dhalatay iyo bil saddexa bay dhalatay iyo waxaasoo dhan waa khuraafaad aansan lahayn. soomaali uun maalmaha ka mid a mayna dhalateen oo bil saddexa maxay bilaha kale ka qabtaa? maalmaha kale soo un la mid maaha. waa khuraafo aan jirin. anigu waxaan maqli jiray arbacada bishu markay dhammaanaysa arbacada ugu dambeysa ilmaha dhashay soomaalidu dhixi jireen waa arbaca gooniyaad bay dhahaano ilmo inta badan aan barakaysnayn oo la baasaysta dhasha bay dhihi jireen. waa khuraafadan waxba ka jirin weeye. nabigeenuna sal lla alay wasalam waa diiday waxaa la yidhahdo tatayurka. tatayur waxaa la yidhahdaa baasaysiga, khalqiga inaad qaar ka mid a baasaysato, maalmaha qaarkood baasaysato, maaragtay xayawaanaadka qaarkood baasaysato, dadka qaarkii baasaysato. soomaalida waxaan garanayaa xataa dadka qaarkood qabaaisha qaarkood waxay dhihi jireen waagu markuu baryo ood gurigaaga ka kalaahdo hadduu nin reerkaasa kaa hor yimaado ruuxa ugu horreeya kaasoo horbaxa u noqdo adoon ka dhiijinin lama dhaafo. oo muxuu galayoo dambiye oo looga dhiijinay calashaani baas iyo balaayo waa baasaysi, waa nooc baasaysiya. qaarkood waxaan arki jiray marka iyagoo socota oo kale ay arkaan ama dawaco ay hormarto ama dhuruwa hormaro oo kale bay wuxuun bay ka fasiranayaan oo waxay ku leeyihiin ama abshir bay leeyihiin ama way baasaysanayaan waxay leeyihin balaaya inagu soo socto. waxaasoo dhan waxba kama jiro. xayawaanaadkan waxba kuma xidhna, maalmahan waxba kuma xidhna. ilaahay baa adduunkan maamulaya. waa nooc iimaan la-aan ah iyo caqiida la-aan iyo diin xumo ah wey. saas daraaddeed gabadhu ama arbaca ha dhalato ama bil saddexa ha dhalato ama maalin kale ha dhalato, bini aadamku maalin unba dhalan lahay, maalinkuu dhashay iyo isaga dadnimadiisa waxba iskuma xidhna. haddii lagugu diiday oo reerkii lahaa ay kuu cuskadeen middaasay dhalatayna waxaad ku tidhahdaa sideedaan ku rabaa dheh.
sideedaan ku rabaa bil saddexeedeedaasaan ku rabaa ugu siiyay wax dhibo kaa soo gaari ma jiro insha allahu tacaala mas'alada saddexaad oo ah gabadha waxaa la igu diiday gobolka ay ka soo jeedaa mid ogaada horta sideedaba gabadha intaad soo doonto waa lagu diidi karaa masaladaas waa inayna dhacdo ma aqaano fiqigaasi meeshuu inaga soo galee waa horaa waxaa laynaga dhaadhicay gabadha intaad soo kaxayso waxaad tidhahda aabaheed ii meheri hadduu kuu meherin waayana qaaliga agtiisaa ka meherso warkaasi war soconaya maha warkaasi war jira maaha aabbaheed walaalkeed adeerkeed talada guurinta waxaa loogu dhiibayba inuu wax diidi karo wey inuu wax diidi karo oo ku dhihi karo gabadhan kuma siinayo wuxuu ku dhihi karaa faqiir baa tahay xoolo ma haysatid gabadhayda ma dhaqan kartid ariyo banaanka marba ku dhihi karaa wuxuu ku dhihi karaa waliyo si ahaantaadaan dabeecadaada iyo dhaqankaagaan u bogin oo billahi tawfiiq inay kala wadi hays geejinin meesha wax kuma lihide waxba kuma lihid meesha qasab kuma lihid haddii gabadhii iyo waalidkeedu isocdo ay wax ku ogolaadaanna khayr allow dhe haddii wax laguu diidana ilaa wa ilaaba diin baa ii goynayso waa ku qasbantihiin war jira maaha waa loo diidi karaa waana laguu diidi karaa haddii laguu diidana gabdhuhu waa badan yihiin gabadh kala rayso insha allahu tacala waxaad helaysaa mid ku ogol reerkoodi inuu kula ogol yahay laakiin waa khalad in ama gabdhaha waalidkood loo gacan dhaafo ama la yidhaahdo wuu wilaayo baxayo qaaligaan ka mehersanaya meelahaasaan ka mehersanaya war jira maaha war khalada wey in waalidku uu wax ku dhiso gobol iyo degmo iyo reer iyo qabiil iyadana waa khalad maxaa yeele hadda maxaynu soo marayna xadiiskii nabiga sal lay wasalam idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuhu buu nabig sal lay wasalam nin diintiisa iyo akhlaaqdiisa aada raalli ku tihiin hadduu idin yimaado u guuriya buu nabig sal lay wasalam maxaa gobolkiisa kaa galay oo dhalashadiisa kaa galay oo reerkiisa kaa galay oo wiilkani ninkani gabadha ma kaa dhaqan karaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa ma ku kalsoon tahay si buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh haddaad yeeli weydaan fitno ballaadhan iyo fasaad weyn baa dhici buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh waana midda taagan hadda waa midda taagan waay waalidku inuu wax ku saleeyo waa khaldan yahay gabadhana in guurkeeda sidaa lagu baajiyo waa masale ismi iyo dembi ah laakiin haddayba dhacdaba in laguu diido waxba ha isgiijinin intaad iska tagto meelahaagaa kale gabadh ka raadsa wabilahi towfiiq insha allah su-aalaha intooda badan nagooyinka aan reebi doonaa 3 su-aalood insha allah kusoo khatimi doonaa ninkaan dhalinyarada wuxuu leeyahay sheekh waxaan ahay dhalinyaro ah waxaan leeyahay xaas dhibaatada jirta waxay tahay markaan u badana xaaskaygu way idiidaa aniguna waxaan ahay insha allah oo in badan u baahan xalkeeda muxuu noqon karaa nabigeena sal lla alay wasalam xadiid saxiixa ka sugan oo uu leeyahay haweeneyda hadduu ninkeedu u yeedho oo uu gogasha ugu yeedho oo ay diiddo isagoo cadhaysanna uu sidaa uu habeenkii ku seexdo malaa'igta ilaahay baa lacnadaysa ilaa uu agu ka baryay buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh xadiid kaloo sugan baa nabigu wuxuu ku leeyay sal lla alay wasalam xataa iyadoo oo ku jirta jikada ku jirta jikada adigoo ku jira hadduu ku yeedho hawshii gogasha iyo dantii gogashana uu kaa leeyahay u imo buu nabigu sal lla alay slm shaqada kale o dhan soo jooji xataa dheriga dabka saaran ha gubto xadiis kalea nabiga ka sugan sal lla alay wasalam oo uu leeyahay xataa hadday socoto leeyahay oo ay rati neef geel a saaran tahay calaa dahri qatab reeriye iyo rati korkii iyadoo saaran hadduu ka maarmi waayo u yeedho ha soo degta buu nabig sal lay slm kulli daalika maxaa loo leeyahay leanna waxaa loo leeyahay guriga waxa loo dhistay wuxuu ahaa muhiimadiisu inuu ninkuna baahi beelo haweentuna baahi beesho hawlaha ugu muhiimsan in laysku dhowrsadaa meeshan loo samaystay waxaa la diidan yahay marka waana waxyaalaha ugu inta badan keeno weya guriga khilaafkiisa keeno wey dumarku marka waa inay arintaa iyadaa ka taxadaraan haddii ay yani wax weeyaan uu ninku uu dhalinyaro yahay oo laga yaababa inuu haweenta ka awood badan yahay markaas de waxaa la odhanayaa uu naa kala guurso gabadhuna yana xanaaqin markaa hadday noqoto ninkii gabadhii in macnaha wax weeyaan uu dhibayo oo uu rafaadinayo
oo markaasi wax weeyaan uu awoodiisa macnaha wax way ka badan tahay haddii markaasi wax weeyaan 2 iyo 3 iyo ayaduna ha ogola ha guursado ayadana yuusan rafaadinin isaguna yuusan israfaadinin wabillahi tawfiiq sharaacadu waxay fasaxday laakiin laba gooraba siday dooniba ha noqotee xaqaas gogashu waa xuquuqda ugu muhiimsan ee ninku xaaskiisa ku leeyahay haddii aynan jirin taa dambe sheegayo laakiin dumarkii haweentii ay xanuunsanayso ama ay duruufaysan tahay ayana duruufteeda in la qadariyo meesha ku jirta duruufteeda in la qadariyo haday xanuunsan tahay haday jiran tahay haday sideeda isaga diideysana waa mid shariicadu ka hadlayso maya lama ogola marka iyadoo billahi tawfiiq saayirka wuxuu leeyahay waxaa la sheegay ogaada xadka ay shariicadu u dejisay ninka khaatibka ah intuu gabadha ka eego iyo qaabku weeyo waxaan u maleynayaa muxaadarada gudaheeda waan ku sheegay dumarka haweenka markuu ninku uu doonayo inuu sheeko guur la yeesho waxaan soo sheegnay inay shariicadu tiri soo arag oo soo fiiri ilaa intee buu ka fiirin karaa su-aashu waa taas culimadu waxay isugu khilaafsan yihiin 2 ra'yi isaga sheegi mayno isagu waa tabar daray laakiin 2 ra'yi bay isugu khilaafsan yihiin oo kale oon ka ahayn qole waxay leeyihiin wuxuu ka fiirinayaa wejiga iyo 2 gacmood intooda hore oo inta badan dumarka u bannaan dumarku ay banneeyaan labadaasuu ka arkaya ra'yi waa ra'yigaas waa ra'yiga culimada intooda badan qabaan ra'yi kala jira oo culimada qaarkood ay qabaan oo ay leeyihiin gurigeeda markay joogto qaaliban inta badan jidhkeeda meelaha ka bannaan buu ka fiirin karaa guriga markay dumarku joogaan waxaa u bannaan inta badan gacmahay banaysanayaan lugahay iska banaysanayaan yani waxa way luqunta marka qaarkood xataa timaha way iska banaystaan inahaas markay guryahooda joogaan ay banaystaan caadatan rag ayna la joogin ayagu wada joogaan inahaasuu ka arki karaa oo ka fiirin karaa bay leeyihiin culimadu ra'yigaasana xoog badan 2 ra'yi kaasa xoog badan in macnaha wax way qaaliban inta muuqata jirka uu fiirin karayo dariiqada uu marayo waataan horey usoo sheegnay isagaa garanaya laakiin shariicadu intay u ogolaatay waa intaa sharti labaad waa inuu ninkani guurdoon yahay qodobkaas aad ha loo qabto dumarkii baa la isu fasaxay aan meesha lagala tegin waa la isfasaxay yaan la qaadanin waa inaad guurdoon tahay haddii aynan guur ka ahayn waxaad soo gelaysaa waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim kama baxaysid markaa ilahay wuxuu ihi mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa indhihiina laaba oo dumarka fiiradooda ka laaba waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna dumarkana u sheeg buu alla yidhi subxana wa tacala nabigiisa u sheeg ayaguna indhaha ha laabeen oo ragga fiiradooda ha ka laabeen iyo wixii ilahay uusan ugu talagelin subxana wa tacala maxaa la ogolaaday halkaa xaalo waa la ogolaaday oo fiiradaas daruur ahaan baa loo ogolaaday iyo arrintan ka hadlaynay sababtan horey usoo sharaxnay ayib hadda waayahan waxaa aada loo isticmaalaa bahalkan la yidhaha internetka sooma internetkaasaa la iska shukansadaa isagaa laga hasaawaa sawiradaa la isu diraa xaaladii lais hor imaanhayay waaba dhammaatayba ma ku filan yahay oo ma kaga filan yahay jawaabtu waa maya sawir laysu dirayna ayaan lagu kadsoomi waa inii sheegaya haddaba sawir laysu diray sax maaha kaagamana filaan karo ruuxaad doonaysa inaad guursato araggiisa kaagama filaan karayo leanna waxa weeye aniga hadda waa idin hor fadhiya waan madoobahay sooma soo midabkaygu madow maaha haddaad tidhaahdo isukay sawiroo isa soo qurxi waxaan iska soo dhigi wax balaaya ka dhacday hadda ka hor bay ku dhacday nin yar dhalinyarada ka mid oo nairobi jooga gabadh meelahan joogtay malaha isshukaansadeenoo iyadoo taagan bay isu soo sawirtay oo dumar kale iyo qolyo la socoto meeshii baa sawirka loogu keenay muddo markii la wada socday gabadhii way soo tagtay oo waxay timid Kampala Uganda asagina Nairobi buu ka soo tagay oo Kampala la isugu yimid asagii baa ii sheekeynay fadhigii ugu horeeyay wada fadhiisanay buu oo sheeko isugu nimid guri dheer oo jaran jaro loo fulay ahayo malaha gabadha qaraabadeed baa lahayd
gurigii markii intaan ka soo baxay aan soo degayay buui garabkaa laysoo qabtay buui waan soo degi kari waayay naxdinta aan naxay buui macnaha waxa weeye ruuxii la ii soo sawiray ee sawirka iigu yimid iyo ruuxan isoo hor fadhiistay wax islamaba aha marka kuma filla internet iyo isoo sawir iyo warkaa ka baxa warkaas waxaasoo dhan baahidii shareecadu ay rabtayna ma buuxinayo khaladaad badanna waa ku jiraan khaladaad badanna waa ku jiraan booskii shareecadu ay rabtayna ma buuxinayo wabillahi towfiiq su-aal akhiir insha allah way ka baxsan tahay arrimihii guurka su-aashani waxaa soo qoray gabdho badan oo niqaabka xiran ama wejiga asturtay kuna nool dhulkan galbeedka marka waxay leeyihiin sheekh dhibaato badan ayaa naga haysata maxaadna lagu talin laheed in halkan iskii joogno iyo inaan niqaabka xirno way isku qayb qaban laadahay marka wixii tala iyo nasiixa ah u badasho masalada ku saabsan niqaabka ama indhashareerka xidhashadiisa mas'alo ay culimmadu isla meel dhigeen ma aha waa masalo culimmada sunnadu ay isku khilaafsan yihiin qadiiman wa xadiidan ilaa waqti hore ilaa hadda isku khilaafsan yihiin culimmada qaarkood waxay qabaan wejiga haweentu waa cawro wabitaali waa inay asturto culimmada qaarkoodna waxay qabaan cawro ma aha inay asturto waa sida fiican laakiin cawro ma ahoo astur lagu laasimin maayo isla markaas haddayna weji qarsooneyn xataa raggu inay fiiriyaan iyaga xaaraan bay ka tahay fiiradu iyadu meesheeda waay laakiin ayada wejigii inay qariso ma laazimbaa waa masalada ay culimmadu ka doodayaan khilaaf adag baana culimmada dhexdooda yaalla meelaha qaarkood haddii ay duruuftu adkaato oo indhashareerku adkaadana wax dhiba uma arko inay gabdhuhu qaataan ra'yiga odhanaya in yacni wejiga ay indhashareerka ka dhigaan dhibaato ma leh ra'yiga inay qaataan liduruuf meesha markaa ay joogaan ku saabsan uma arko wax dhibaataa inay ku jirto waana ra'yi ictibaartiisa la wey sida maalan sheekh albani caleyh raxmat ullaahi uu kitaabkiisa ku qoray kitaab madax bannaan uu ka alifay wuxuuna soo guuriyey aathaar fara badan oo dumarkii salafka ridwaanullaahi calayhim inay qaarkood weji bannaanaan jireen aayadaha kaleeto iyo axaadiista tafsiirkooda la isku hayso meesheeda wey culimmadu ku muransan yihiin maadaama marka masaladu masalo noocaasa ay tahay xaaladda kolba markaa timaadiyo duruufta markaa taaganaya meesha ruuxu uu joogo kolba inuu wixii yani markaa uu ku socon karo uu ka qaataay mushkilo male wax baasana uma arko haddii gabdhuhu ay ku adkaato inay indhashareer ka wadaan haddayna ku adkaanayn waa inay wadaan oo ay indhaha xidhaan hadday ku adkaato inay indhashareerka iska dhigaan aniga aragti ahaan wax yani dhib igulama muuqato laakiin culimaa idin joogta inta badanna waxa weeye sida muctabarka meel walba culimada joogta ayaa masaa-ishooda looga dambeeya hadday gabdhaha culimadii wadanka joogta yidhaahdeen indhaha xidha waa inaad indhaha xidhataan warkayga markaa waxba kama jiro hadday culimadii ay indhaha xidha aynayd indhihinna masaladu waa masalo noocaas oo la isku khilaafsan yahay culimaduna ay isku diidan yihiin laba ra'yo xoog badan baa masalada ku jirta inuu sida aysarkee kolba ruuxa u fudud iyo ninkii caalima intuu weydiiyey yidhaahdo wax dhibaataa male hadduu ay gabadhu isaga dhigto ceeb ma aha dhibaatana male insha allahu tacaala kolba sidii yani waxa weyaan duruuftoodu iyo waaqicay ku dhex nool yihiin uu kalifayo maxaa yeelay xataa waxaa ka mida qawaacidda shareecada waxaa ka mid a sida shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah oo kitaabkiisa ku taxqiijiyey xaaladda uu ruuxa muslimkii gaalada ka baqaya ama uu ka baqayo in dhibaato loo geysto xaaladda iyada ah wuu ku waafaqi karaa waxyaalaha daahirka ah maalan lebis iyo waxyaalo noocaas oo kaleeta ah hadduu baqayo wey hadduu baqayo baqdintuna ay xaqiiqi tahay haddayna fulaynimo uun ay iska tahay meesheeda wey ictibaar male markaas laakiin baqdin xaqiiqiya oo naftiisa ama xoolihiisa ama uu baqaya hadday jirto xaqiiqi oo dhab ah oo jirta oo waaqic oo jirta hadday tahay marka qaabku u xeeladaysan karo wuu xeeladaysan karaya shareecaduna waa ogoshay rukhaskeeda ayay ka mid tahay sida sheekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah kitaabkiisa uu ku xaqiijiyey iqtidaau siraad almustaqiimka uu ku xaqiijiyey wabillahi towfiiq